dhalinyaro waxaan idin leeyahay marka haddii 74 sano ka hor dhalinyaro idinka aqoon yar oo idinka resource yar oo maxaan ku raahdaa idinka siiyay maxaan ku raahdaa dhaqaale yar ay gaareen inay Soomaaliya isu keenaan oo ay mideeyaan waqooyi iyo koonfur war maxaa hadda idin yaala sugaysaan ma waxa idin sugaysaan kaaba qabiil ama nin ku qaraabta qabiil inuu maalin walba idinku kacsado annaga waan la tagay reebel hadaan nahay xilna lama siinin oo idin tiriyo markay ugu dambeysana ay tahay wax naftiisa aan dhaafin waxaan idin sheegayaa dhalinyaro fadhiga ha laga kaco waqtigii waa la joogaa annaga ugu horreeyno oo dawladda idin fadhino oo rabno inaan idin power gareyno inaan idin xoojino oo awoodiina idin sheegno oo aan gacan idinku siino wadankan inaa hanataan mustaqbalka ma ahay maantada aan joogno waxa kale oo muhiim ah dawladdan anigu aan madaxweynaha ka ahay iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan nala kala dhexgelin in aan noqono ul iyo diirkeed inaan noqono awoodiinu waa awoodeydana waa awoodiin waxyaabaha arkaysaan marka la isoo dhaweenayo marar badan waa ayri oo markii ugu horeysay aan tagay meesha la yiraahdo Nairobi madaxweynaha Uhuru Kenyatta waxyaabaha uu arkay oo uu go'aan ku qaatay in diyaaradaha ka baxay halkan ay toos u aadaan Nairobi oo laga leexiyo wajeer waa taageeradiina iyo isku duubnaashaheena iyo midnimadeena waxa muuqda Soomaalinimadii inay soo noqotay haddaan qabiilnahay sharaf malihi cidna karaameynaysan ma jirto haddaan nahay xaq jir adduunka oo dhan waa naga soo horjeesanaya marka waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dawladdan idinkaas kale hadday xun tahayna qabta hadday wanaagsan tahayna gacan u noqda oo u noqda laf dhabar u noqda waajibaad baana saaran idinkana waajibaad baan saaran annaga waajibaadkana saaran waxay tahay inaan idinkeena dawlad wanaag oo aan la tartanno dawladaha kale oo shisheeyna aan la tartanno waxaana saaran oo tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno waxaan naga go'an inaan cadaalad qof walba oo Soomaali ah uu helo si uu qabiilku uga fogaado inta badan qabiilku waxa loogu dhawaadaa maxaa yeelay dawladdii idinku aad laheedeen yaa laga yaabaa cadaalad darro idinku sameynayso marka haddii annagu aan ka shaqeyno qof walba xuquuqdiisa inuu helo qabiil uma baahnidin waxaan ka shaqeynaynaa intaas oo dheer ammaanadiina inaan idin ilaalino oo dhaqaalaha aad dhiibtaan oo yar inaan si fiican idinku maamulno oo aan adeegii dawladda aan soo celinno iskooladii aan soo celinno maxaan ku iraahdaa caafimaadka aan soo celinno jidadkii aan soo celinno iyo waxa loo baahan yahay idinka waxaa idinka rabaa marka kow dawladdan in aad taageertaan 100% aad gacan siisaan oo maanta haddii la yiraahdo soo baxa halkaasaan qabanaynaa uusan qofna istaagin waxaa idinka rabaa inaad ammaanka nagala shaqaysaan oo qoladan nabadiidka ah oo Soomaali u diiday horumarka iyo mustaqbalka wanaagsan inaan la qarin in la sheego xitaa hadduu walaalkaa yahay maxaa yeelay hadduu walaalkaa yahay as leedahay adigu ku dili maayo nin kale aad taqaano walaalkaa u dili isna walaalkiis uu qarsado adigu ku dili dadkan xaq jirka ah Soomaali ma aha hadday Soomaali yihiin annaga siina cafis inay noo yimaadaan oo waxay u baahan yihiin aan siino oo dhismaha dalkeena nagala soo qayb galaan haddaysan Soomaali ahayna walaalayaal dalalkooda ha aadaan dalkan islaamka oo dhan kama dhaxay adduunka dalkan Soomaaliya iska leh cidda iimaanaysana idinka u ogolaanaya qofkaasna waa inuu noqdo qof akhlaaq iyo wanaag iyo horumarka qayb ka noqonaya uusan noqon qof idin qarxinaya oo idin maleegaya bambooyin oo maalin walba dadka leenaya ama hantida burburinaya walaalayaal annaga doorkeena waa cadyahay idinkana waxaa la idinka rabaa doorkeena inuu caddaado oo aad bixisaan walaalayaalow canshuurtu waa ka bedelayna hadduu Ilaahay yiraahdo haddii baarlamaanku ii ogolaado waxaan rabnaa inaan u bixino qaran canshuurta xoogaa waxay u egtaa wax la is xoogaayo canshuurtu haddaydan bixin dawlad ma shaqayn karto waxyaabaha aad arkaysaan oo nalooga hormaray dawladahana aad arkaysaan oo maxaan ku raahdaa hore u maray waxay hore ugu mareen waxay tahay shacabkooda yaa canshuurta bixiya oo qof walba habarta shaaha karisa gabadha maxaan ku raahdaa yaanyada gadda iyo ninka weyn oo hotelka iska leh isku si inay canshuurta bixiyaan markaas waxay imaanaysaa dawladdan inay xoog yeelato
oo lacagtii dhaqaalihii loo dhiibtay ee si fiican u maamusho idinkuna aad noqotaan dad muwaadiniin ah qofka hadduusan canshuur bixin muwaadin ma aha qofka muwaadin waxaa ka dhigaya iyo dawladda inuu wax ka sheego ama dawladda waa markuu wax ku darsado dawladda waa degan tahay dalka dhexdiisa kaliya ma aha muwaadin annagana hanagu kalifina inaan dawladda dad idinkoo kale inaan barino oo aan niraahno canshuurtiina wax naga siiya dadkiina fiican oo canshuurta bixiyee annagu dadkeena ma rabaan canshuurina bixiyaane magan alla magan rasuul wax naga siiya waxaad haysataan naga ilaaliya annaga noomaydan dooran inaan wax tuugsanno waxaad noo doorateen inaan sharafkiina iyo karaamadiina idiin soo celinno laakiin inaan maalin walba dawlado shisheeye aan hoos fariisanno aan niraahno war wax naga bixiya war ciidamada naga bixiya xaq ilaahay maaha sidaas darteed haddii aad la tartantaan shacabyadaas kale oo aan idiin sheegayo annaguna waxaan la tartamaynaa dawladahaas kale waxaan idiin sheegaynaa 4 sano gudaheeda dalkan inuu noqdo dalalka ugu horumarsan Afrika insha Allah hadduu la yiraahdo wax yar aan siiyo report intii aan qaban